waxa uu maanta magaalada Boorama dhagax dhigay wasiirka howlaha guud iyo guriyeynta Somaliland Cali Mareexaan xarun cusub oo lagu magacaabo Boorama Public Library oo loogu talagalay inay wax ku akhristaan bulshada ku nool magaalada Boorama. Madashani lagu dhagax dhigay dhismahani ayaa waxa iyadu qayb laxaad leh ka qaadatay jaamacadda Camuud oo iyadu ku deeqday dhulka loogu talagalay inuu ka bilaabmo dhismahani. Munaasabadani lagu dhagax dhigay ayaa waxa ka soo qayb galay mas'uuliyiin tiro badan oo ay ka mid yihiin wafdi uu hogaaminayo wasiirka howlaha guud iyo guriyeynta Somaliland xubno ka socda wasaaradda waxbarashada maamulka gobolka ka degmada Boorama oday dhaqameed iyo bulshada qaybaheeda kala duwan. Ugu horeyn waxa madashaasi ka hadlay gudoomiyaha jaamacadda Camuud Professor Saleebaan Axmed Guuleed isla markaana ka sheekeeyay habka uu bixiyay dhismahani sidoo kalena sheegay inay ansixiyeen dhammaanba mas'uuliyiinta jaamacaddu. waxaan dhigay boardkii waa ansixiyay waxaan dhigay councilkii oo aan gudoomiye u hay waa ansixiyeen marka awood buuxda ayaa wasiirka iyo intaba loo leeyahay dhulkii jaamacadda barigii lagu wareejiyay annana intii library uga noqota oo xagga koonfurta space ka banaan waanu ku wareejinay. maxaan ku dhahaa maanta waa guushii iyo midhadhalkii iyo maxaan ku dhahaa in maanta dhagax dhigii maanta la dhagax dhigo wasiirka howlaha guud iyo guriyeynta abaal badan baan u haynaa. qaarkiin iyo qaarkeena arki doono qaarkood way nala yaabi jireen markaan sheegi jirnay riyada ah in Boorama ay u baahan tahay maktabad dadka u furan oo u bilaasha oo dadku leeyihiin oo dan guuda hase ahaatee wixii ragu kaco rabbina aqbalo rumooba wata rumowday. sidoo kale waxa iyaguna halkaasi hadalka iska daba qaatay duqa degmada Boorama Maxamed Xuseen Maydhane iyo sidoo kale gudoomiyaha gobolka Awdal Mustafa Cabdi Ciise Shiine. run ahaantii waa wax qabadkii labaad ee dhalinyarta sanadka maanta ku jirno markii hore waxaan ka gacan qabanay garoonka oo dhisnay waa guushii taariikhiga ahayd gobolka u soo hoyatay markaan dhalinyarta gacan qabanay kana maanta waa qaybta aqoonta ayaan ka gacan qabanaynaa. anigu aad baan ugu faraxsanahay maanta inaan goobjoog ka aado sida maayirku sheegay sababtoo ah gobolkan waa gobolkii loo tirinayay aqoonta gobolka aqoonta Jamhuuriyadda Somaliland inuu yahay gobol jaamacadda Camuud oo markii horena dugsigii sare dalkan u lahaa ay ka soo baxeen madax badan oo dalkan maanta ay leedahay oo kamid yahay madaxweynaheenu. ugu dambeyn waxa madashaasi hadalka soo gabagabeeyay wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta Somaliland Cali Mareexaan oo ka warbixiyay muhiimadda ay u leedahay bulshada ku nool magaalada Boorama xaruntani. waxa maanta aad igu sharafa inaan maanta joogo goobtii ay ka dhismi lahayd Boorama Public Library oo noqon doona dhismo taariikhi ah oo aqoonta ay gobolka Awdal iyo Boorama ay taariikhda ku leedahay qayb weyn ka qaadan doona hadii la ka dhigo dhismahan iminka aynu joogno aynu dhagax dhigi doono library-ga waxa hore amar ku bixiyay madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland in loo sameeyo Boorama oo magaalada taariikhda leh ah. waa Cabsalaan Saaha telefishinka caalamiga ee bulsho magaalada Boorama.